السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهان تمام ملك كستا نقد داوانaysan halkani waa hamidooda aniguna waxaan Cabdiraxmaan waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabto meel kasta oo aad iga daawanayso hadii aad nala joogtay waad mahadsantahay barnaamijka saaxiibada iyo Soomaaliba la wadaag hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biro wadadii 100,000 baan saaranahay wax yar baa inoo dhimane qoodhaya xirada subscribe channelka noo saar barta Facebook aad naga daawanaysana follow na soo dheh رمضان كريم كل عام وانتم بخير تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال الله إنا وافتشيو رمضان كه تضبط طبعا كهورين حريص أيا الوجرة ومالين تلبات بيش بركة سنة رمضان وهجاج وعشرة النتحانها ها كوساب سنة دقن كنا السويال كحر عيسى قيبتني وقيبتي كوب يلا باتنات وحين قادن دونا شريح هذا أيو qof xiniyaha la jaray oo nin ah iyo gabadh naasaha laga jaray iyo qofka labeebka ah iyo suuro xumaynta wajiga nabarka kaaga dhaca iyo jirkaaga waxa kaaga dhacay ee fool xumeeya ayaynu qaadanaynaa bal wixii dhaqankaas habkii loo xallin jiray iyo habkii looga dhaqmi jiray jareexada ruuxa markay gaadho uu isagu intuu gudida u yimaado yiraahdo waxbaan qabaa jareexaduna waa nabar muuqda ama jug ah laakiin aan wax weyn ahayn 7 bari baa la celin oo soo noqon 7 bari baa la celin oo soo noqon 14 bari baa markaa la celin waa isku imisa adu 28 bari waa bil adigu waa 3-4 week waa bil baa la celinayaa intaana waxa uu lagu oranayaa marka la celinayo bal orodoo toddobaadkan soo joog oo iska soo joog hadii de wuxuu wax yar bahay iskana baabo iskana bogsoodo xanuunkiina ka boo wax ma qaba uu marka oranaya laakiin wali haduu soo taagan yahay waxbaan qaba bishaas ayay gudidu kulba celinaysa iyadoo uga jeeda inay sal gaadhaan ma nabar doogba oo casharada sharciyan soo maray miya oo nabar muuqda ma laakiin waa doog waa jug وقاحو مياه مسه وواح اسكن لعب صغير هادو لعب صغير يا بابا الله وضع هادو بابو هذا محو قبا واسكو دماتي هادو عذر عقدد قبو marka aan baade afiskiya gacmo saarkii bay gudido ka shaqeyn laakiin magti iyo xaqi baynu ka hadlaynaa hadii marka uu bisha ku soo laabtay ninkaasi 14 bari kadib waxa lagu oranayaa wan shanjir ah la kaalay hadii uu waxba qabin wuxuu la jeclaysanaya wankiisa oo diidaya hadii kale wankii buu keenaya ninkii baa lagu oranayaa marka daweyso adugu wixii ka baxay iyo wixii gaaray iyo wixii uu sheegto iyo wixii laga xaqaba halkaas marka hawshiisi yaa lagu dhamaynaya waa jareexada nabar darbaaxa keentay nabar feer keenay nabar tuuriya keentay nabar ulyari keentay waxaas waa hagaag dagalayda xiniyo go'ay ninba xiniyaha laga jaray ninkii waa caafimaad qaba sidiisa kale waa nool yahay waa koron oo shaqaysanaya laakiin dama dhalayo ma tarmayo sidiisa kale waa nin shaqaysanayo hanti iyo guriyo iyo wax walba samaysanay waa hagaag konton halaad ayaa ninka laga bixinayaa maxay tahay sababta marka ninka kontonka halaad looga bixinayo maadaama aan booliis iyo dawladu aynan jirin ee dadku ay doonayaan inay maaragtay kala toosaan ayagu waxa qaabka loo yeelay kontonka looga dhigay muusa dhimanin oo boqolkiisii ma aha konton baa laga bixiyay hadii la yiraahdo kontonkii boqolkiisii bixiya waxa iman karta in la yiraahdo boqolkiisii hadaan bixiyo ma noolaanayo waan dilaya si ayna fidmadu u badanin nin maanta boqolkiisii laga bixiyay oo noolo magtiisii oo dhan la bixiyay te haddana hadii dhagar kale lagu galo waa hawl kale oo annagaba inta ma laga gaadhay kuwana ma laga qaadataa Allah laba kala baxayo sida daraadeed baa ninkii konton halaad yaa laga bixinayaa ninkii noocaas ahaa baa la dilay waa lagu dhagaroobay konton horay buu u qabay konton kala laga bixinayaa dadka sidaas
ayaa waagaas lagu kala xallin jiray oo lagu kala joojin jiray hadday ninka islaantiisu ay xiniyaha ka goyso oo xiniya tirto ama ha tunto ama nabar ay ku dhufatay ha ku baaba'aan ama ha ka jarto gabadha reerkooda yaa kontonkii laga qaadaya naasa goyn waa qaybta labaad dhagalayda naasa go'ay gabadha ama ugub ha ahaato ama curad ha ahaato ama dee qof dumara oo naasa leh haddii naaska laga jaro magteeda barhkeed baa la bixinayaa waxaa intaa iyada u dheer oo sii raacsan ninka ka jaray geyiga iyo godanka uu ciise dega kama guursanayo magac baana loo bixinayaayo candhagooyaa la odhanayaa ninkaas mar haddii ninka candhagooyo loo bixiyo magaciisii baa lagu ladhayaa naanays baa looga dhigayaa waa laga cararayaa qisaa dhacday marka nin gabadh naasa ka gooyey oo sidaa ku go'doomay oo candhagooye la baxay yaa carruurtiisii kortay wiil ka mid ah yaa gabadh u fadhiistay waa loo diiday hadal la yaab le ayuu yidhi oo wuxuu yidhi aabbahay nin yaqaana gabadh ima siinayo oo candhagooyu ahaa nin aniga i yaqaanana gabadh iima diidayo oo hebel baa la yidhaahdaa maxaynu soo marnay nin ciise caarad ma dheero hadalkaa qalbiga ku hay maxaynu soo marnay cid laysuma aaneeyo maxaynu soo marnay wax dekana la yidhaahda ma jirto maxaynu soo marnay wax takoorid la yidhaahda ma jirto laysma takooro sidii baa gabadhii wiilkii lagu siiyey magacii baa laga diday markii hore inay hebel candhagooye ayaa laga diday sidaa ayaa marka gabadhii wiilkii lagu siiyey sababtoo maxaa waaye wax dembi asagu ma qabo nafna naf kale dembigeeda ma qaado marka laguma xadgudbin wiilkii xuquuqdiisii gabadhii waa la siiyey waxaa leeyahay ninka cadhada gooye adiga ma aha raalli ahow taasi waa intaas dhagalayda labood dhadiga waa waxaynu u naqaano labeebka labeeb xiliyadan dambana wayba iska bateen oo magacyo kale iyo si nooc kaleba noqdeen laakiin hormoonada ragga nin ay ka yar yihiin oo dumar u eg iyo gabadh ay hormoonada rag ku jiraan oo nin u eg baa la arki jiray waxaas waa labeeb baa la dhihi jiray labeebku marka waa labood dhadig af soomaaligan baa ka saxan labood dhadig waa ninow naag labeeb baanse inagu u naqaanay qofkan labeebka ah ama labood dhadiga ah ama ninow naagga ah waa la qiimayn haddii u bato xagga ragga oo macaamilkii ragga uu leeyahay waa labood dhadig laakiin ceelashuu shubaa ciyaaraha wuu ciyaaraa ragga sidiisana wuu u labistaa magta ragga laga bixin haddiise uu sida dumarka u labisto oo howlaha dumarka uu qabto oo howl rag uusan qabanin magta dumarka laga bixin hadduu labadaa midna u dhici waayo maxaa la samayn oo markii la qiimeeyo la ogaado inuu ragga iyo dumarka u dhaxeeyo midna uusan xaggooda u badnayn maxaa la samaynaya magtii ragga haafkeed iyo magtii dumarka haafkeed baa laga bixinayaayo 75 halaad baa laga bixinaya ninkaas sidaa u baro waa hagaag dhagalayda foolxumo mag ma bi'isaa waa su-aal dheg baa lagaa jaray nabar baa mataqaanaa wejigaagii loo geystay mag baa lagu siiyey dhegtaa markii lagaa jaray dhegti waa eber waa foolxumo ku taa ma kuu soo celinaysaa waa maya ma soo laabanayso foolxumo waa haddii dheg ama san caaradii lagu gooyo sankaasaa lagu jaray ama dhegtaa lagu gooyey kow waxaa u yaala waa un laba gacal iyo gacan saar
gacal iyo gacan saar ayaa la kala yidhaahdaayo labada unbaa loo kala qaadayaa waa hagaag ninka laga gooyey dheg waxaa la siinayaa gabadh waase haddii uu geeyo hadduu geyin waa gacan saar waa wax dee laba qof oo saaxiibo ah oo wax walba ka dhexeeyaan oo isu dhow oryo walaal ah wada dhashay isu dhow iskabdhageyin wixii ka dhexdhaca waa gacan saar marka uu gabadhaa guursaday gabadha hadday wiilal u dhasho baa la yidhi wuxuu hilmaamayaa foolxumadii gaadhay laakiin haddii mag la siiyo oo boqolkiiba la bixiyo foolxumadii ma iloobayo mana hadhayso xooluhu ma bi'inayaan foolxumada sidaa daraaddeed baa yaa gabadh la siinayaa hadduuse gabadhaa geyna dee waa gacan saar oo gacalkiisiiyo maaragtay waxaa la leeyahay niyahow yaa duca waa loo ducaynayaa kama hadhayso wuxuu samaynna ma jirto laakiin wax aana iyo dakara iyo aragoos la yidhaahdaay ma jirto waxyaaba ayaa ka reeban qaybtan 21aad inta ayaynu ku joojinaynaa intaynu dhagalayda dhagarta sokeeyaha aynu u tegi doono qaybta 22aad waxaan idinkaga tegayaa anigu cabdiraxmaan sida iyo nabadgelyo ramadaan kariim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته